بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ومركل إيو wararkii Soomaaliya ugu dambeeyay waxaan ku soo qaadan doonaa guud ahaanba wararka ka imanaya dowlad goboleedka Puntland oo maanta wararkeedu badan yihiin maxaad ku ogtahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo markaasi ballanqaad culus ka helay wadanka Mareykanka waxaa kaloo aad ku daawan doontaan rag weerar ka qorsheeyay halka ay joogaan Axmed Madoobe iyo Laftagreen oo la qabtay Cabdishakuur oo isaguna qoraal xasaasi ah u diray madaxweynaha Xasan Sheekh waxaa kaloo aad ku dhageysan doontaan ciidamo gadoodsan oo xirtay wadooyinka gala madaxtooyada Puntland wararkaas iyo warar kale oo ka mid yahay Siciideen oo isaguna dalbanaya in Soomaaliland ay ka qayb gasho shirarka golaha wadatashiga qodobadaas oo faahfaahsan ayaan hadda halkan idin soo gelin doonaa la socod wanaagsan balse inta ka horeysa sidii caadadaynu ahayd baa waa inaad heshaan warar kuwan kasii fara badan si aad u heshaana waa inaad saartaan like subscribe iyo share aynu ku bilowno ugu horreynba wararka laga helayo magaalada Garowe ayaa sheegaya in maanta ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ay hortaag ku sameeyeen Khadar Cabdiraxmaan Farol oo isagu ah ergeyga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dhanka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga Khadar oo isagu ah wiil dhalinyaro ah oo uu dhalay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farol ayaa lagu soo waramay in lagu celiyay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir xilli uu ku wajahnaa dhanka gudaha magaalada Muqdisho lamaha amniga ee garoonka ayaa la sheegay inay joojiyeen la taliyaha madaxweynaha kana hor istaageen inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Garowe taasoo buuq xooggan ka dhex dhalisay gudaha garoonka sida ay inoo sheegeen goobjoogayaal wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal ayaa waxay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo iyagu gadooday ay xirteen wadada gasha wasaaradaha iyo xarunta madaxtooyada ee Garowe ciidamadan oo ay ku jiraan kuwa ilaaliya madaxtooyada isla markaana wata hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sheegay inay ka gadoodsan yihiin mushahar la'aan iyaga oo xukuumadda ka dalbaday inay xuquuqdooda helaan ciidamadan ayaa sidoo kale isku fidiyay wadooyinka wasaaradaha gala iyaga oo dib u celinaya shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha oo shaqo ku wajahan waxaana taasi ka dhalatay caqabad shaqo maalintii shalay ayaa ahayd markii sidan oo kale ciidamo ka gadoodsan mushahar la'aan ay xirteen wadooyinka gala dekedda magaalada Boosaaso waxaana talaabooyinkan ay ku soo aadaysaa xilli deegaanada Puntland laga qabtay doorashooyin qof iyo cod ah oo intaynaan ka bixin wararka dowlad goboleedka Puntland aynu ku sii soconayeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isagu dalbaday in Soomaaliland ay ka qayb gasho wadahadalada madaxda Soomaalida ee golaha wadatashiga qaran si ay kaalin ugu yeelato go'aanada laga gaarayo madaxweyne Siciid Deni oo ka jawaabaya wareysi ay BBC-da qaybta afka Soomaaliga uu siiyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo muddaxileedkiisu uu sii dhamaaday ayaa taageeray sida uu safiirku uga hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland iyo arrinta Somaliland safiirka waqtigu ka dhamaaday ee Mareykanka Larry Andrew ayaa wareysigaasi waxa uu ku soo jeediyay in Somaliland ay ka soo qayb gasho wadahadalada dowladiska ku saleysan ee madaxda Soomaalida waxaana soo jeedintaasi taageeray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waa tahay daawadayaal weli waxa aad si toos ah nagala socotaan channelka Horfadhi News oo aad ka soo gudbinayno wararkii Soomaaliya markana haddii aynu Puntland inta kaga tagno wararka laga helayo gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in qarax xooggan oo halakeeyay kaydka hubka ee ugu weynaa ee ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen koonfurta Soomaaliya kaasi oo u yaala degmada Jilib oo ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa warisay in qaraxa uu ka dhex dhacay guri ku yaala Jilib oo kayd hub ahaan u ah ururka Al-Shabaab isla markaana uu gabi ahaanba bas beelay hubkii dhex yaalay sidoo kale warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in qaraxa uu sababay dab xoog leh oo guriga qabsaday taasina ay sii adkaysay xaaladda goobtaasi ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa magaalada Barawe ku soo bandhigay 3 nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda ururka Al-Shabaab raggan ayaa lagu soo qabtay howlgal qorsheysan iyagoo sida la sheegay maleegay qorshaha howlgallo culus oo ay ka fuli rabeen magaalada Barawe magaaladaasi waxaa ku sugan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaana la sheegay in ragga la qabtay ee ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku howlanaayeen qorsheynta weeraro culus balse laga hortagay
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isagu haatan ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la kulmay safiir ku-xigeenka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ninka la yiraahdo Tim Trenkel. labada mas'uul ayaa kulankooda uga wada hadlay xaaladda guud ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga, siyaasadda iyo go'aanka madasha wada tashiga ee awoodda dib loogu soo celinayo shacabka Soomaaliyeed dalkuna uu ku aadayo doorashooyin dadweyne. sidoo kale waxay isla soo hadal qaadeen dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ugu dambeystina xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu haatan ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya oo qaabilsan arrimaha bani'aadantinimada ayaa warqad ku taariikhaysan 29 May 2023 u diray madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo uga hadlay heshiiska golaha wada tashiga iyo khilaafka dowladda iyo Puntland. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiiska ay gaareen golaha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyey nooc doorasho oo qof iyo cod ah laguna bedelay nidaamkii hore ee dowladnimo sida lagu cadeeyay heshiiska la saxiixay. xildhibaanka ayaa sheegay in heshiiskan uu baalmarsan yahay dastuurka isla markaana lagu xadgudbay awooddii baarlamaanka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. habraacyada iyo hanaanka lagu hirgelinayo ee uu golahu soo saaray qodobka 47 ee dastuurka dalka ee dhigaya in golaha shacabka uu leeyahay awoodda dejinta shuruucda la xiriirta xisbiyada iyo doorashooyinka heerka dowladda federaalka ayaa qoraalkiisa uu ku yiri mudane Cabdishakuur oo isagoo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh. sidoo kale waxa uu tallaabadan ku macneeyay in loo qaaday dhanka muddo kororsiga oo uu ku tilmaamay inuu yahay aafo siyaasadeed oo halis ku ah dowladnimada. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkii aanu idinka haynay Soomaaliya oo aad kala socoteen Horfadhi News. waxaanan dhammaantayo idinkaga tagnaa sidaasi nabadgelyo, balse ha ilaawina codsigii subscribe, like iyo share ahaa si aad u heshaan una sii share gareysaan akhbaaraad si aad u heshaan wararkan iyo kuwo kale oo la mid ah isla markaana sii share gareeya sida dad fara badan uu gaadho warkani. waa mahadsantihiin mar kale.